السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبان دي سلام يا مروي تولي وحن داوناي وسير كبيرة عبد القادر إيمان والله كل ما يقولها كورتي ذا سمالا مid horta wasiirkan odhanaya midna golaha joogtada gurtida ayaan odhanaya midda wasiirka odhanaya oo uu yiri mushaharkii wasiirada la gooyay oo la jaray oo waxaan kaga qayb gelinaa dagaalka horta wasiir arrinkaas iyo hadalkaas meesha ma qabanin runtii sababtaan uu qabanna waxa weeyaan faragel jire gacmo geli jire hoos baa loo dhaqaa oo dee saxaafadii kula joogto wixiina public hadhow noqonayaan oo public tagayaan dee ereyada qaar inaad la kala yara hadhow wax korka xaadiso un bay ahayd laakiin xoogay arrintaasu nimcada dee Somaliland taalo malaa xoogay waa yara ilduuftay waddanka nimcada taalo wasiir manaynaan gaadhin heer mushahar aynu waliba dee qof dawladdu shaqaynaya mushaharkiisa inta laga gooyo dagaal lagu galo heerka maynaan gaadhin oo SNMba dee heerka mabay gaadhinba yaa talabaad aan taa horta wasiirkan odhanaya talabaadna waxaan odhanayaa golaha guurtida ama golaha baarlamaankaba iyo dadka ay la kulmayaan ee wasiirada ah ama madaxda kale ah ay wareysanayaan ee la kulmayaan ilaa xaaladda waddanka iyo wacyiga ay ka wareysanayaan horta mid bay ku qaldayeen baarlamaanka iyo guurtiduba saxaafadan ordaysa ee tusan sidaa kamarada idinka duubaya sababtaasaan fahmi lahaa ilaa hadda ma bulshada wasiirka wareysanaysa mise golaha wareysanayo xaaladda waddanka iyo nidaamka wax ka weydiinaya horta niyo saxaafadda 100% anigu maan aragde wali waan yaabane tii hore berigii ka dhacday la isku aflagaadeynayay qoladii baarlamaanka ayaan ogaa tanna way dhacday laakiin iyo bal horta bal hal laga digtoonaado xaaladda marka wasiirka ama madaxda lala kulmayo la kulmaysan waa in ay noqotaa wax saxaafaddu ay dabadjood ka tahay oo aanay duubayn hadda arrintii waxaaba la gaarsiiyay in Somaliland xaaladeedu bariga dhexe tahay yaa maraniyo wallahi arrinta aad baan dad badan oo iga midino waa bulshada ka midino arrinka way diideen waliba saxaafadda in loo ogolaado inay kulamada noocaas oo kale ay ka soo qayb galaan xoogay ma fiicna. Assalaamu calaykum.